qaadacada Faransiiska siduu iska hor imaad u dhex mari karaa Macron iyo shucuubta dunida Islaamka. Waxay hadda u muuqataa in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu wajahayo wejiyada careysan iyo aragtiyo adag oo kaga imaanaya dunida Islaamka. Arrintaas waxay ka dhalatay hadaladiisii dhowaan ee lagu tilmaamay kuwa sii huriyay xasaradii ka dhalatay sawir gacmeedkii lagu aflagaadeeyay Nabi Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh. Sawirkaas waxaa dhowaan daawacay wargeyska lagu magacaabo Charlie Hebdo oo mar kale ku soo celiyay. Madaxweynaha Faransiiska ayaa yidhi weligeen kama tagayno in aan sawirno iyo in aan wax ka matalno xitaa haddii dadka qaar ay dib u gartaan. Macron wuxuu hadalkan jeediyey xilligii aaska loo sameynayay macallinkii la beriyay kadib markii ardaydiisa uu tusay sawir lagu sheegay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Samuel Paty waxaa lagu gowracay waddo ka tirsan caasimadda Faransiiska ee Paris. Macron hadalkii uu jeediyay 21 bishan Oktoobar wuxuu ka areysiiyay qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo shacab dalal ka mid ah dunida Islaamka. Sidoo kale waxaa bilowday olole ka socda baraha bulshada oo lagu diidayo alaabta uu soo saaro Faransiiska. Faransiisku wuxuu u muuqdaa in uu ka warhayo carada iyo xanaaqa bulshada dalalka Muslimiinta ah ee ka dhanka ah madaxweyne Macron. Dowladda Faransiiska ayaa dalalka ka carooday arrintaas ugu baaqay in ay joojiyaan diidmada ka dhanka ah alaabta uu soo saaro dalkaas iyo dibadbaxyada. Madaxweynaha Faransiiska wuxuu dhankiisa u muuqdaa in uu iska dhiga tirayo arrintaas, wuxuuna bartiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin af Carabi ah oo ku yidhi: "Ma jirto wax dib inoo celin kara, weligeed waxaan nahay dad xor ah." Wadamo badan oo Muslimiina waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo hadalkii ka soo yeeray Macron. Sidoo kale culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay. luqada ay fahmayaan Faransiis waxa weeye badeecadooda in muqaataca lagu sameeyo aan la gadan. luqada ay fahmayeen inaan hadda maanta madaxweynahooda wax ka sheegno ama ayaga wax ka sheegno ama cid kale wax ka sheegno ma fahmayaan, laakiin waxay fahmayaan luqada ay yaqaaniin oo ah muqaatacada in badeecadooda la joojiyo oo aan la gadan. waxaan leenahay shucuubta Faransiiska iyo shucuubta masiixiyiinta oo dhan ama yuhuud ha noqotee aan muslimka rumaysnayn waxay ogaadaan waxaad Nabi Maxamed aad ka qaadi kartiin ama aad ka dhibi kartiin lama arko diin laakiin in la target gareeyo Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sida maaragtay hadda alla ku rooyahay culimadu ay sheegtay in Nabi Maxamed wax laga sheego horaa looga sheegi jiray wala wax loo weydiiyay yani oo nabiga alayhi salaatu wasalaam loo dhibi jiray soo ma arkaysid haddana haba yaraatee wax ay ka nusqaanayso in ajirkiisa iyo fadligiisa iyo karaamadiisa maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa kaana fadlullaahi calayka caliima fadliga Ilaahay ku siiyay Maxamed mid weyn badan oo ahaa wax inta ka dambeeyo qof wax ka tiri kara amba wax ka waxay kara midna